kulankan oo lagaga hadlayay dardargelinta tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adda shaqaalaha dawladda oo uu garwadeen ka yahay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaarke Geelle ayaa saaka lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ee magaalada Burco waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa barsaabka gobolka Togdheer iyo dhammaan ballaamaha kala duwan ee gobolka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaarke Geelle oo ugu horeyntii halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkiisa aynu kaga tashan doonaa arrimo muhiim ah shaqada iyo shaqaalaha dawladda iyo kobcinta iyo horumarintooda sidaad la socotaan dhawaan waxaynu bilaabi doonaa mashruuc ballaaran oo ah tirinta iyo tayinta shaqaalaha dawladda waxaynu u tirinaynaa ama aynu xogtooda u baadi doonaynaa si wax looga qabto waa laga yaabaa inaynu in badan ama marar badan aynu maqli jirnay inagoo madax taabasho samaynayna laakiin laba shay oo muhiim ah oo ay ka maqnaabaynu doonaa doorkeena inaynu kobcino shay koobaad waxa weeye dadkan aynu tirinayna inaynu ku tirino in indhahooga ama farahooga midkood la qaado si ay u noqoto xog rasmiya oo aynu isticmaalno qalabyadii kala duwanaa loo isticmaali jiray marka doorashooyinka oo kala diiwaangelinta la samaynayo si ay uga ilaaliseen laba jeer qofku meel jeer ka soo gali karo iyo in xogtu noqon karto mid tobanaanka sano ee soo socota la isticmaali karo shaqaalaha inaynu tirinayna ama aynu dabagalaynaa waxa ugu muhiimsan maaha inaynu caagla raadinayno iyo qof laba meelood ka mishaar qaato kaliya waxay naga maqan dhammaan xogtii shaqaalaha dawladda ee waxtarka leenugu qaban kari lahaa oo rasmiya meel walbo imika codsi aynu geynaa ama aynu nadhan shaqaalaha ka kaba waxa ugu horeeya su'aalo wuxuu noqdaa xog rasmiyood marka samaysan ma jiraan imsa dumara imsa raga oo rasmiya aqoontoodu halkay taagan tahay in ka sii kobcin karnaa mishaarkoodu waa imsa maxay u baahan yihiin inuu shaqaaluhu say u horumar oo dhan arrimahaas oo dhan baa dhawaan waxay bilaami doonaan iyagoo ilaa 16 su'aalood shaqaalaha dawladda lagu ogaanayo 16 ka su'aalood waxa ka samaysmi doona waxa la leeyahay waxa kubcinayo taran shaqaalaha dawladda u baahan yihiin barsaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax ayaa isaguna ku dheeraaday muhiimadda ay qaranka u leeyihiin kulamada noocan oo kale waxaanu hay'adda shaqaalaha ku amaanay doorka ay ku leeyihiin wax qabadka wadanka waxaynu bilaabmay kulan aad iyo aad muhiim inoogu ah gobol ahaan iyo dal ahaanba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda shaqaalaha oo intan dambe aad iyo aad ugu howlanayd bal sidii goboladana la isu soo gaarsiin lahaa ee shaqaalaha dawladuna uu u noqon lahaa mid xuquuqdii uu lahaa uu helo hadday tahay qofku dee markuu gaadho waa ogtiino in dee booskiisii la bedelaabaa muhiima si adeegii dadka loo qabanayay uu halkii uga sii socdo maxamed jookar shabakada wararka Caynaba News Burco.